السلام عليكم ورحمة الله. walaalaha khayrka jecel waxaan idiin soo gudbinayaa maanta qiso aad iyo aad cajiib ah oo aan hubo inaad ka wada heli doontaan. wallahi waa qiso aad iyo aad cajiib ah. waa qiso toobadkeen oo aan maqlo kuwii ugu cajiibsanaa mid ka mid ah. talow qisadani waa noocee? waxaa jiray nin u dhashay magaalada Basra ee wadanka Ciraaq oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanti fara badan siiyay, maal qabeen ah, laakiin dhanka kale wuxuu ahaa nin faasiq ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku caasiyay macsiyo badan, xariga Ilaahayna ka furtay. ninkii safar ayuu galay, meel ayuu aaday. waxa uu soo gatay islaan adoon ah, walina ah fanaanad aad u cod macaan, ku dheeraysa heesaha, walina si fiican u taqaana neekiska ama jaaska iyo walina qaraacitaanka waxa lagu qurxiyo codka ee kabinka ama muusiga. wuxuu islaanta ku gatay dahab aad u fara badan, hanti badan buu ka bixiyay. wuxuu rabaa oo kali ah maadaama ninkan maal qabeen yahay in marka uu mirqaamo ay u haysto oo ku raaxaysto codkeeda iyo waxa ay qaadayso. waa uu soo laabtay, waxa uuna ninkii soo raacay doontii marka ay marayso badda dhexdeeda jawi degan ku socoto. yaa wuxuu bilaabay ninkii inuu khamro cabo, inuu khamro qaybiyo. islaantin wuxuu ku yidhi, hees, istaag, orod oo noo hees. waa ay bilowday codkeeda ugu fiicnaaya ku heestay, ayada oo raalli gelinaysa sayidkeeda. ninkii wuxuu bilaabay inuu cabo khamradii. waa uu isgaran waayay, indhaha ayuu galka ka bixiyay, isaga oo mirqaan meesha ugu dambaysa u marayso. yaa wuxuu arkay wiil ka mid ah dadkii doonta la saaraa oo wiil yar ah. wuxuuna ku yidhi, war wiil yahow, ma maqashay wax ka fiican oo ka macaan gabadhan codkeeda iyo waxa ay qaadayso? war ma maqashay weligaa? wuxuu ku yidhi wiilkii, bala, nacam, haa, wax ka fiican ayaan maqlay oo aan hayaa. ninkii waa uu yaabay, indhaha ayuu taagay. wuxuu ku yidhi islaantii, jooji. wiilkii buuna ku yidhi, keen waxaad hayso, maxaad haysana maqashii? wiilkii waa istaagay. cod aad u fiican, cod aad u macaan, qurux badan, walina si degdeg ah ayaa wuxuu ku akhriyay hadalka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala. qul mataacu dunya qaliil wal-aakhiratu khayrun liman ittaqaa walaa tudlamuuna fatiila aynamaa takuunuu yudrikkum al-mawt walow kuntum fii buruujin mushayada. ninkii waa isbedelay, qalbigiisa ayay taabteen aayadahan. si istikhyaar la'aan ah ayaa khamradii dhaladii ahayd, si istikhyaar la'aan ah ayuu dhaladii khamrada ahayd ee uu gacanta ku haystay gacantiisa uga baxday. waa ay dhacday, isagii oo dhan ayaa gariiray. waxa uuna yidhi, waxa aan kirayaa wixii aan ku jiray ama aan dhegaysanayay inuu waxani ka fiican yahay oo ka macaan yahay. waxa uu ku yidhi haddana, ma haysaa wax kaleeta oo la mid ah kan? haa ayuu ku yidhi wiilkii. haddana wuxuu akhriyay kalaamka Ilaahay. waxa uu akhriyay aayadan cajiibka ah, waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur inaa actadnaa lilظaalimiina naaran axaada bihim suraadiquha wain yastagiithuu yugaahuu bimaa'in kalmuhl yashwi lwujuuh bi'sa asharaab wasaa'at murtafaqa. aayadan cajiibka ah ayuu ku dul akhriyay wiilkii. ninkii waa uu kasii daray, isagii dhan ayaa isbedelay. waxa uuna yidhi, astakfiru allaha wa atuubu ilayh, astakfiru allaha wa atuubu ilayh. isagii dhan dhidid ayaa kusoo istaagay. waxa uuna ku yidhi islaantii, orod oo laabo, waxaa tahay xor, waan ku xoreeyay, xor ayaa tahay, dhaqaaji. isagii oo bedelan oo yaaban oo istikfaarta iyo digriga afkiisa ka soo baxaya yaaban ayuu awood waayay inuu taagnaado. waa uu fadhiistay, wuxuu qabsaday doontii. waxa uuna ku yidhi wiilkii, aniga oo kaleete meel uu u baxo miyuu leeyahay? nin xumaan oo idil sameeyey, ilaahay xarigiisa gooyey, xalkiisu muxuu yahay?
wiilkii markuu arkay ninkii siduu isku bedelay iyo inuu shallaytoonayo ilaahay u toobad keenay xumaantii ka fuqay oo uu jabiyey bahalkii lagu qaraacayay muusiga khamradii tuuray yaa wuxuu yidhi balaa waxaan ku hayaa wax naftaada dejinaya waxa uuna akhriyay hadalka ilaahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru adunuuba jamiica inahu huwa algafuuru alraxiim markaas buu ninka yidhi waxaa qirayaa inuu yahay inahu huwa algafuuru alraxiim waa uu ku celceliyey wuxuuna ku dhintay isla meeshii doontii dhexdeeda ayuu ku dhintay doontii lafteeda ayuu ku dhintay isaga oo toobad keenay shallaytooday ka dhex baxay xumaantii ilaahayna subxaanahu watacaalana istikfaar iyo dembi dhaaf weydiistay waxa uu yidhi ninka ka sheekaynaya qisadan wallaahi waxa uu dhintay ninkani isagoo afkiisa ka uraysa khamradii uu cabayay laakiin ilaahay ayaa haleeshiiyey toobo wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun qofkeenna ma oga walaalayaalow marka uu dhiman ilaahay subxaanahu watacaala towbada hana haleeshiiya inta aynaan dhiman ka hor khaatumadeennana khayr ha ku khatimo sii gaadhsii walaalahada kale ee khayrka jecel assalaamu calaykum waraxmat ullah